رئيس وزراء حكومة فدرالك الصومالية مدن حمزة عبد البر ayaa xafiiskiisa ku qaabilay danjiraha Jamhuuriyadda Carabeed ee Masar u fadhiya Soomaaliya mudane Maxamed Saalax Xasan. Kulankan ayaa si faahfaahsan looga wada hadlay danaha muhiimka ah ee labada dal iyadoo si gaar ah diiradda loogu saaray maalgashiga Soomaaliya gaar ahaan dhanka caafimaadka iyo tamarta. Ra'iisul Wasaare Xamza ayaa dowladda Masar ku bogaadiyay waxgalnimadeeda iyo hilkeeda aan isbedelin ee la barbar taagan tahay shacabka iyo dowladda Soomaaliya, isagoo intaasi ku daray in si buuxda loo soo celiyo nabadii iyo amnigii qaybo badan oo ka mid ah dalka. Haddana Soomaaliya ay diyaar u tahay maalgashi toos ah oo lagu sameeyo kaabayaasha kala duwan ee dalku leeyahay. Danjiraha Masar Maxamed Saalax ayaa ra'iisul wasaaraha uga mahadceliyay qaabilaadda, wuxuuna sheegay in dowladda Masar ay sii xoojin doonto heshiisyadii iskaashiga ee horay loo galay ee diiradda saaraya dhinacyada muhiimka u ah danaha labada dal. Mudane Xamza ayaa ugu dambeyntii ka warbixiyay xaaladda bini'aadanimo ee ka taagan qaybo ka mid ah dalka iyada oo ay baaqdeen roobabkii deerta, taas oo saameyn ku yeelatay nolosha dadka iyo duunyada ku dhaqan gobollo badan oo ka mid ah dalka.